السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وقti wanaagsan xilli kastoo ay ku tahay casharkeena waxaynu ku qaadanaynaa possessive adjectives possessive adjectives oo ah sifada lahaanshaha adjectives waa sifooyin possessivena waa lahaansho sifooyinka lahaanshaha ayaan ku qaadanaynaa sifooyinka lahaanshaha my car gaarigayga kombiyuutarkayga gurigayga walaalkay aabahay hooyaday waxaan kaloo ku arkaynaa how to form possessive adjective sidee loo sameeyaa horta possessive adjective waxay tahay waa barate oo waa sifada lahaanshaha macnaha waa baranaysaa markaan casharka ugu tagno markaa baratid kadib how to form possessive adjectives how to form sidee loo sameeyaa possessive adjectives waddada ay tahay in aad marto oo haddii lagu tuso cid danbe aadan weydiinayn maxay tahay waxaan sidoo kale ku tegi doonaa examples tusaalooyin about ku saabsan ama of ku saabsan waa isku mid eh possessive adjectives examples waa tusaalooyin of oo ku saabsan possessive adjectives sifooyinka lahaanshaha ugu dambayntiina waxaynu arki doonaa maantay exercises oo aan yarayn inaha ayuu casharkeenu ka koobnaan doonaa daqiiqadaha yarkaa oo casharku socdo adduunyada maanta waxaa baabi'iyey ama kala reebay ama dadka horumarka iyo inay hal abuur ama la yimaadaan ama dadaal sameeyaan waxaa ka hor istaagan wax la yidhahdo distractions waa dhabqiyaal waxaa ku qasaya tusaale ahaan waxaa u baahan tahay marka inaad wax si fiican u barato ama si fiican u fahamto ama si fiican u daraasayso ama si fiican uga shaqayso ay tahay waxaad u baahan tahay focus diirad saarid waxa inaad xoogga saarto meel kale inaadan u jeesan marka maantay haba ugu darnaaday mobileka iyo teknolojiyadda waxyaabaha la xiriira ayaa qofkii waxa ay ku noqdeen laf dhuun gashay oo uusanba hal saac ama nus saacba uusan wax toos diiradda u saari karin marka arrimahaas inaad iska ilaaliso inta casharku socdo ayaan kuu soo jeedinayaa waa hagaag aan hore u socono marka ugu horreysa waxaan kuu soo diyaariyey inta qodob ee ay ka kooban yihiin possessive adjectives possessive adjectives waa sifooyinka lahaanshaha possessive adjectives sifooyinka lahaanshaha intaanay ka kooban yihiin halkaana waa tusaalahoodii my waxayga my aniga waxayga marka adigu iska hadlayso your adiga waxaaga your waxaaga marka qofka la hadlayso their waxooda ayaga waxooda our waxeena marka jamca u hadlaysid his wixiisa her waxeeda itis waxeeda itis waa wax aan noolayn ama xayawaan wax lamid ah ayaa loo isticmaalaa intaas kalena waa dad marka aan aragno anagoo ku dabaqayna tusaalooyin badan oo intaan ka badan ayaa inoo soo socda laakiin kuwaani waa hordhac my waxayga soo mahayn my waxayga my pen qalinkayga your waxaaga your pen qalinkaaga your pen qalinkaaga their waxooda their pen qalinkooda our waxeena our pen qalinkeena his wixiisa his pen qalinkiisa her waxeeda her pen qalinkeeda it is meat hilibkeeda meat waa hilib penna waa qalin it is meat hilibkeeda exampleskii ayaynu weli ku guda jirnaa key language
luqadda muhiimka maanta aad baranayso halkan waxay tahay possessive adjectives, sifooyinka lahaanshaha, sifooyinka lahaanshaha. ayagoo tusaalooyin fiican lagu dabaqa waatana marka. Felix is my cat waa mukulaasheeda. Felix waa magac oo mukulaal. Felix is waa my cat mukulaasheeda. My soo wax igama hayn my cat mukulaasheeda. Buster is her dog waa eygeeda. Her dog haar soo wax igama hayn her dog waxeeda. Buster is her dog waa eygeeda. Rachel is our daughter waa gabadheena. Rachel is our daughter waa gabadheena. Our soo waxayna mahayn our daughter gabadheena. Coco is your rabbit waa bakaylahaaga. Bakaylahaasaa laga hadlayaa soo ma arkaysid. Polly is his parrot waa shimbirtiisa. waanakii soo baranay casharkii ugu dambeeyey shimbirtii baqbaqaaqda ahayd ee dadka daba hadlaysay. Polly is his parrot waa shimbirtiisa. Polly is his parrot waa shimbirtiisa. Hiiso wixii samayn his parrot shimbirtiisa. John is their son waa wiilkooda. qofkaana tilmaamaya labadaana dhashay John waa kana. John is their son waa wiilkooda. John is their son waa wiilkooda. Forming adjectives. Forming waa samaynta adjectives sifooyinka. sidee loo sameeyaa? sifooyinkii waa soo aragnay. My waxayga inay ahayd, your waxaaga inay ahayd, their waxooda inay ahayd. haddaba forming adjectives samaynta adjectiveyada ayaan baranaynaa markaan. samaynta sifooyinka. forming waa samayn, adjectivesna sifooyin. adjectives sifooyin. How to form sida loo sameeyo possessive adjectives sifooyinka lahaanshaha. How to form sida loo sameeyo possessive adjectives. horta possessive adjectives ama sifooyinka lahaanshaha waxaa laga sameeyaa oo ay ka imaadeen pronounadii 7 ahayd ee aan soo baranay oo ahaa I aniga, you adiga, he asaga, she ayada, it ayada, we anaga, they ayaga. 7daas pronoun ayaa laga sameeyaa sifooyinka lahaanshaha oo loo yaqaano possessive adjectives. sidee looga sameeyaa aan aragno. marka I adigu tahay waxaaguna waa my waxayga. markaan I anigu ahay ama adigu tahay myna waa waxayga. my waxayga. my cat mukulaasheeda soo ma arkaysid. my cat mukulaasheeda. you marka adigu tahay waxaaguna waa your waxaaga. your waxaaga. your rabbit bakaylahaaga. your rabbit bakaylahaaga. he markay asaga tahay wixiisana waa his wixiisa. his wife xaaskiisa. waatana waa la taaganta. his wife xaaskiisa. she markay ayada tahay wixeedana maxaa waaya haar waxeeda. haar waxeeda. haar sister walaasheed. haar sister walaasheed waa ay la taagantaha waatana. haar sister walaasheed. it ayada. it ayada. itis waxeeda. itis waxeeda. itis ball kubaddeeda. itis ball kubaddeeda. kubaddii waatana bisadaana iska leh. waa kana wuxuu leeyahay itis ball kubaddeeda. itis ball kubaddeeda. we anaga. we anaga. our waxeena. our waxeena. our horse faraskeena. waxay leeyihin faraskaana iska lehna labadan qof maxay leeyihin our horse faraskeena. our horse faraskeena. they ayaga. they ayaga. their waxooda. their waxooda. their son cunugooda. their son wiilkooda. waa kuwaana waxaa leeyahay their son wiilkooda. their son wiilkooda. marka 7 pronoun waa kuwaana oo I iyo you iyo he iyo she iyo it iyo we iyo they. 7 adjective oo ka imaatana waa kuwaana my waxayga. your waxaaga. his wixiisa. her waxeeda. itis waxeeda. our waxeena. their waxooda. it is your turn waa markaaga marka. exercisekii ayaa la soo gaaray.
waa markaaga adigaa iskale shaqada inaad si fiican u qabsato ayaa muhiim ah exercisekan boggan ama qaybtan waxay ka kooban tahay exerciseka koowaad iyo exerciseka labaad exerciseka koowaad match ku aadi the picture sawirada to their phrases weerahooda ku aadi match ku aadi the picture sawirada to their phrases weerahooda ku aadi phrases waa weero picture sawiro match ku aadi the picture sawirada to the phrases waxaa ku aadisaa weeraha ku aadi sawirada waa kuwana weerahan ayaa lagaa rabaa sida ay u leeyihiin adiga oo fiirinaysid possessive adjectiveska ay tilmaamayaan adiga oo fiirinaysid sifada lahaanshaha adigoo fiirinaysid tii koowaad waa lagu sameeyey qofkan waxay haysataa bisaday haysataa marka maxay leedahay maykaad mukulaasheeda ama bisadeeda qofkan wuxuu tilmaamayaa faraskan iyo qofkan wuxuu tilmaamayaa labadan qof iyo idahan waa idoohan qofkan labadan qof waxaa ka dhexeeya waxaan meesha yaalla oo ah fish wax malaay ku dhex jira ama kalluun ku dhex jira waa kalluunkaas waa kalluuna meeshaas ku jira qofkan wuxuu tilmaamayaa eygan lafa hoostaala qofkan wuxuu tilmaamayaa qofkan kale iyo eygan wuxuu tilmaamaya marka inaad isdejisid isku day samee jumladihiina waa kuwaana akhriso wax aadan aqoonin ama aynan soo marinin kuma jiraan laga yaabee it is bone waa laf sheep ido cat mukulaal horse faras fish kalluun ama malaay dog ey u imow haddaba qaybtan labaad exerciseka labaad waxaa lagugu leeyahay halkan fiil in ku buuxi in the gaps meelaha bannaan using adigoo isticmaalaysid the corrective possessive adjectives possessiveka saxda oo ay leedahay ku buuxi meel kasta fiil in maxaa ku buuxi the gaps maxaa meelahan bannaan using adigoo isticmaalaysid the corrective possessive adjectives sifada lahaanshaha ee saxda sifooyinka lahaanshaha ee saxda adjectives maxaa sifooyin possessivena maxaa lahaansho corrective maxaa sax intaan toddobadii sifo aan soo qaadanay midba meesha uu leeyahay uu ku habboon yahay uu saxda ku yahay geli khalaas marka intaas ka soo shaqayso waan isla arki doonaa koorsadan dhammaamayso ayada oo aanan ka wada shaqaynin dhammaan exercisyada laakiin hadda waxaan uga tegaynaa oo uga gudbaynaa in adigu meelo tegtid aad ka soo shaqaysid wixii aad ka soo shaqeeya weysidna kamhiya halkaan la imow erey cusub kuma jira meeshaan saan filayo aanti waa eedo waa soo aragnay waxaana waa magac kaad waa mukulaal waa soo aragnay iidna waa cunitaan iidna maxaa cunid fish kalluun rabbit bakayle leafis ku noolaasho in the backyard wuxuu ku nool yahay daydka backyard maxaa dayd rabbit bakayle leafis ku nool in the backyard daydka guriga tusaalahan baroodi waatana waxaana waa magac Colombia wife waxaas waa soo aragnay waxaana waa magac Henrietta waa magac qof dog a 10 years old 10 sano jira waa soo aragnay auntie eedo waaye farmna waa beer ohayana waa gobol magaciisa ballna kubad marka waxaa kaloo kaaga sii daran mid kasta waa lagu agdhigay wixii uu ka soo jeeday waa lagu agdhigay soo ma aanan dhihinin possessive adjectivesku sifooyinka lahaanshuhu waxay ka soo jeedaan pronouns-kii
pronouns-ki toddobada ahaa ee aan naqaanay ayay ka yimaadeen. Mid kasta pronoun-kii halkan lagu geliyo. Mid kasta sifadiisa halkaas dhakab ku leh. Waxaan u malaynayaa as easy as ABC in sidii ABCda oo kale ay u fududahay. Aan u imaano qaybta ugu dambaysa ama exercise-ka ugu dambeeya casharkeena maanta. Muxuu ku leeyahay rewrite dib u qor the sentences jumladaha correcting adigoo saxaysid the errors khaladaadka. Casharo dhowr ah ayaan soo qaadanay. Waxaa lagaa rabaa in maqaalinta aad gacmaha ku qabsatid. Waxaa la yidhi haddii aa qof baahan haddii aa maalin kalluun siiso hal maalin ayaa quudisay, laakiin haddii aa maqaalin siiso weligiis ayaa quudisay ama aa wax u qabatay ama aa wax siisay. Sababtoo ah haddaa hal mar malaay siisid halkaas mar unbuu cunay berrina waa ka baahan yahay. Haddaa maqaalin siiso laakiinse qof baahan oo meel xeeb agteeda jooga maalin kasta ayuu kusoo kalluumaysanayaa, quudkiisana uu ka helayaa. Marka waxaa lagaa rabaa hadda ka dambeeya maqaalinta inaad ku qabsatid gacantaada. Rewrite dib u qor the sentences jumladaha correcting adigoo saxaysid the errors khaladaadka adigoo saxaysid. Errors maxaa waaye khaladaad, correctina sixid. Sentences jumlado rewrite dib u qor. Xabaddii ugu horreysay waa lagu sameeyey. Waxay ku saabsan yihiin oo xoogga saarayaan sifooyinkii lahaanshaha ee aan soo baranay. Iyo sidaas oo kale waxay kaloo ku saabsan yihiin verb to be-gi. Verb to be-ga waynu ogeyn in you ay r lahayd oo qaadanaysay, I inay am qaadanaysay, we inay r qaadanaysay, they inay r qaadanaysay, she inay is qaadanaysay, he inay is qaadanaysay, its inay is qaadanaysay. Macnaha si guud markaan kuugu sharaxo sida kale pronounska iyo verb to be-ga saddexaa loo qaybinaya. I keligeed inay am qaadanaysay, you iyo we iyo theyna inay r qaadanaysay, she iyo he iyo idna inay is qaadanaysay. Marka wax aadan soo baranin kama shaqaynaysid, laakiin waa wax aad soo baratay. Marka isdeji, yaysan kula noqonin cirka oo soo dumay ama wax culus oo aadan qaban karin. tii ugu horreysa waxay ahayd Nick are my brother. Nick waa walaalkay. Nick waa magac, waa qof nin ah. Magacyaalkiisu muxuu noqon karaa qof nin ah? Waa he ma aare qaadan kartaa? Waa may. Waxaa dhahaysaa Nick is my brother. Nick waa walaalkay. Nick is my brother. Nick waa walaalkay. Farida are their sisters. Farida waa qof dumar ah. Waa qof dumar magaceed. Farida are their sisters. Farido waa walaashood. Dog am our dog. Dog am our dog. Dog waa eygeenaa laga rabaa. Daisy are her mother. Daisy are her mother. Daisy waa qof magaceed, waa qof dumar magaceed. Dogna waa ey magaciis. They is his grandparents. They ayagu waa his grandparents. They are ayagu waa his grandparents. Wax badanaa ka qaldan meeshaan. Inaa saxdaa lagaa rabaa. Isku day, at least isku day. It I am our horse. It I am our horse. Haye. It waa asaga. Amna waa verb to be. Our horse faraskeena. John waa qof magaciisa oo nina. Am our cousin. Waa in adeerkeena laga wadaa. John waa in adeerkeen laga wadaa. I are Daisy's daughter. Anigu waxaan ahaa laga wadaa Daisy gabadheeda. Daisy's daughter. Calaamadaas iyo markii is ay israacaan waa lahaansho. Markaan Daisy's daughter. I are. You is my friend. Adigu waxaa tahay saaxiibkay laga wadaa. You is my friend. Adigu waxaa tahay saaxiibkay. Marka waxaa laga rabaa
inaad soo saxdid inaha lagu calaamiyey kuwa calaamada buluuga ah ama kalarka buluuga lagu dhigay. Halkan waa ujeedaa Nick R ay ahayd my brother. Marka Nick maadaama uu nin yahay magacyaalkiisuna uu he yahay R ma qaadan karo sababtoo he maxay ahayd isku dayga ayaa wax kasta ka muhiimsan. haddaa isku daydo waa samays, haddaa fahamto iyo haddaada fahmin, haddaa ka shaqayso iyo haddaada ka shaqaynin, it's another issue, waa arrin kale taas. laakiin isku dayga ayaa muhiima. haddaa isku daydo wax waa qaban kartaa, ugu yaraan wax baa qaban kartaa. laakiin haddaada waxba isku dayin nothing, waxba ma qaban kartid. maanta casharkeennii intaas ayuu ku egyahay. casharka soo socda inta aynu ku kulmi doono haddii allah awoodda lihi uu qadaro. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ardayay aqoontu waa sidii ilays, waa sida aroortiyo ogta waa barkee. ardayay aqoontu waa sidii ilays, waa sida aroortiyo ogta waa barkee.